قصة آد ماركتي حنون كذا ولا حين وقصة جعيل قصة نكن مركو إلى وداقي وحوها حاجة نكوش قيستا بجاش وحبا مجلس يوم مجلد يوم قف مجلينه قصة وح كوب لابنيسا نك جبر بان وحير آد وجعلا جبر وحير جبر وح توجي جمال وآد وقروح بدن نين حاجة أنتو جبر كوح شبه لهي أخلاقي الدين بيلهي وقروح بدن الدبيعنا ويلهي واسجعلين وحاول السعوني المدة waxaan wada soconaba maalinkii dambe heer waxaan gaarnay buu leeyahay maadaama aanu nin bajaajla aanahay intaan dhagaha gashto earphone intaan gashto in aan maalinkii dhan ku shaqeeyo waa qad ku jirta intaas yaani ay ila hadlayso maba dareemayaba hadalkeeda un baa ugu socda waxa laga yaabaa buu leeyahay inaan 4 mar 3 mar aan wada hadalna maalinkii anto dhanba wuxuu iga baxda koolka sida markay tahay oo marka aan kulmayna ay hadiyada ii keento oo ay aad ii soo dhaweyso wuxuu yiri maalinkii dambe waxaan go'aansaday in aan gabadhan guur u bandhig mar allaala markaan guur u soo bandhigto aan iraado hadii aan saan isku nahay oo aad saan ii jeceshaana sida aan ku jecelahay ma isguursan markaan iraado wuxuu yiri haana ima tira mayana ima tira waa ma weelisa shibeyga leeyahay موضوع أصلاً ويكرهه جيسا متكلم نو صاريسا قف عقل بدن بياه مركا وحا يري ضد بان لا تشت مركان لا تشت وحا لا يري غبدنا وحو يري وا اسرaaciyo aad baan u jeclahay markaan dadka la tashtay waxay yiraahdeen inuu gabadha sida u quruxda badan oo qalbigaaga degtay sidaana kugu sameynayso oo guurkaaga u soo jeedin waxaan kugu la talinaynaa in aad iska dhaafto oo kugu la talinaynaa taladad waaweyn ay ahayd waa qaatay yiri waxaan isku dayay yiri inaan qalbiga ka saaro oo ayada dhan go'aan ka gaaro aan ka haro haddana wuxuu yiri waa qof aan jecelahay wuxuu yiri kama hari karo oo wuxuu yiri sidii aan u jeclaa baan u jeclaa haddaan wacana taleefankayga qaba meeso oo koolka waa la ii dhigaa sidaa waxay ahaataba waxaan go'aansaday yiri in aan aniguna ka aamuso oo aan la hadlin oo sida iga aamusto waxaan go'aansaday buu yiri sida iyaduna koolka igu dhigtay in aan ugu dhigo oo aan ka aamuso awal baan wici jiray aanan wicinba shib inaan ka yaraa go'aankii asoo sidii yahay 3 bilood mar la joogo oo kala aamusanahay hadda waa jecelahay ogow ay soo wacday markii soo wacday axwaasha iska qaadnay waa la sheekaystay xagee ka baxday waa joogay waa caafimaadka la iska wareystay ayadoo halka marayso waxay iigu soo gabagabaysay bishan lagu jiro 25teeda markay tahay waa arooskii waxaan ka codsanayaa maadaama aad saaxiibkaygii hore tahay inaad arooskayga ka soo qayb gasho oo timaado sidaas bay tiri markay u sheegtay in la aroosi rabo muxuu sameeyay inta markay tiri horta wuxuu yiri nin raga intuu qaracmi lahaa oo arintiisa ay fashilmi lahayd baan wuxuu yiri qaracmi jooharadan dhigay haddana waa isdhiiriyay mar waxa isiraahu yiri ma u raacda oo ma ka qayb gasha arooskeed mar waxa isiraahu yiri ma yeesha oo ma tiraahdaa waa ogolahay waa imaana mar waxa isiraahdaa ma diida inta ayadoo sidaa tahay baa waxa ay yiri inta markay tiri wuxuu yiri baan caloosha ka hadlay wax allaala wixii ugu jiray oo aan u qabay qofka baan u sheegay inay ballan naga dhaxaysay in yaani aan hadal isjecel inaan daraadeed maalin kasta aan dadkii kale u jaray waxa soo dhama u sheegay wixii caloosha ku jiro waxa sheeg maxaa iga tagtay anaa ku jecel markaas intii ugu soo jeesatay waxa tiri yiri sidaan dhan hadaad u jilicsan tahay maxaad isku adkaysanayso 3 bilood iga aamusnaa oo isoo wuxuweysay oo markasta aad u isoo wuxuweysay markaas baan yiri adiga ay ka qaban waayay taleefanka haddaan ku soo wacay waa ka taas baan ku soo wuxuway markaas waxay tiri yiri hadiiba sidan aad u jilicsan tahay maxaad isku adkaynaysaa oo aad isoo wuxuweysay oo aad markasta ila soo xiriir guriga xataa u maaweysay waxaa adiga hadaa isoo wuxuweysay anigana waan iska xishood bas waxay tiri yiri warkan ku sheegay waxba kama jiraan oo in la aroosi rabo waxaas ma jiraan gabar walaashay baa xilligaas la aroosiya waxaan ka codsanayaa inaad igala soo qayb gasho wuxuu yiri sidii in awal inta la kala jeexal isku kiciliyay nafti ugu soo laabatay caadi baa noqday sida iyadoo tahay baa xilligii markii la gaaray aad isu soo diyaariyay inuu yaani aroos ka qayb galo gabadha walaashay gabadha inaan aroos ka qayb galo arooskii wuxuu yiri waa imid markii la gaaray si fiican oo isku soo diyaariyay qofkii waa is aragnay waa sheekaysanay deedna arooskii halkii ku dhacay wuxuu yiri arooska waxa joogay yar aan saaxiib nahay oo kaamiramaan ah
baa joogay iyo maalinka duubay meesha isku aragnay isagiina waa salaano waa sheekaysanay hawshii markay halka joogto baa wuxuu yiri la kala tagi arooskii wax ka soo gudbo wuxuu ka soo qayb galay arooska gabadhii maashidaysa todobada maalin ee la yiraahdo todobaadka yaani todobada la yiraahdo inta wuxuu yiri hadaan waco igama qabato telefoonka bismillaah waa wacahu igama qabato snapchat wuxuu ugu soo diray bas hadaan wacano koolka way dhigaysaa hadii yaani ay waxay soo dirtana fariin ayadu waxay ii soo dirta maahana waxba uma diri karo fariintii laga ma jawaabay judgmentii ku korsanaysa aadiyaad anu aad u yaaban oo qaracan oo isdhaayeen qofkii hadad u soo dabacdayna ma ka faa'iideysan rabtaa marka la may rabtaa inay dhulka kugu jiido baa wuxuu todobadii maalin markay maalinkii todobaad la joogo anoo mootadii wuxuu yiri wata la dhacay baa waxa arkay ninkii saaxiibka kaamiramanka baan arkay ninkii baan sheekaysanay waxa ay waran xagee ka timid wuxuu yiri waxaan ka imi arooska isku arkaynay maalinkii todobadiis arooskii gabadha walaashiisa todobadiis baan ka imi kaasaan iri warniyo arooska qof baa iga jiray bal tusi sawirada ka soo qaaday sawiradii buu tusiyo sidii loo waday baan waxa arkay wiil arooskii iyo aroosadii sida markay u fadhiyaan baa laba qof oo kale geeskaas ka fadhisa sawir kula jira waxa oo iyadii gabadha ay ku jirto anuu isdareensiin baan waxa ay yiri niyo arooska aroosada waa gartay labadaan yihiin markaas uu xiro gabadhan ninkan odagaaba u doonan ninka ku xiga waad arkaysaa u doonantu waa iyadana waa la guursan rabaa markaas baan wuxuu yiri hadana joorada dhigo waa qaracmay wuxuu yiri wixii fiis dhama iga gubtay yirino aad baan u gubtay ninkii isma dareensiine wuxuu yiri ma ka hesha qofka raadinaysi ma yaa shibaan ka yiri masaajid baan ka tagay oo laba rag oo sunnah tukada istiqaaraystay baa yiri ilaahow qofka يعني داف شرتيس حتى لبا دور ما جليني waxa yiri shartiis ilaahay dhaaf leeyadeedu way degtay caadi baan noqday hadana waa kala goosan waa dhan ismaana soo wicin shibay kala waa sidii telefoon u dhigay shibaan kala niiriyo dhowr bilood mar la joogo bay hadana hadda ugu soo celisay ay soo wacday soo xiriiris sidii aan ahaa jiray bay rabtaa inaan u noqdo qofkii waa soo laabtay waa qofkii waxaan ogaa ugu sameeyay filinkii ahaa way u doonan taana meel ku dambeeyay ma aqaan buu yiri haduu rabo waa burbur hadii la rabo lagu hungoobay ma aqaan hadaba wuxuu yiri qofkaasi wuu soo laabtay maxaad ugu la talinaysaa qofkaas maxaan ka yeelaa buu marka hadda wuxuu naga rabaa taladii hadduu waqti sharaf lahaa aniga adiga wadaagnay haday weheladu wax goyso wayaan kula joogo wanaagu hadduu abuurmo agtaada waxaan ku beertay haday naftu waana yeesho wax waad bartay ay ku toosto haday naftu waana yeesho wax waad bartay ay ku toosto jacaylku hadduu wareero walaalnimo sooma fiicno hadduu sii waari waayo waxyeelo xun sooma keeno hadduu wadadiisi waayo wixii ku baraashalaya war xun sheegidiisa waxa ka wanaagsan aamus waxaad wada iyo rajaynta ugu calafka ka weyn wax dheef shalay kuguma dooran inaan biyo ka waraabo weyni yari kuma fiirin waxa tahay waad ahayde qalbigu soo kuma wakiilan uga weer suubanaanto waxaan kugu raacay weey uga ficilada wanaagsan halkan waa wax ay keenay wacnaantu ma sii jirayso wixii la rabaa nagaanay waxaan ilaawi doonin waxaad ii fasho wanaaga waxaan xasuusan doonin wixii qalad ka ahaaday calafku waa si lagu yaqaan muxuu wax un kala fogay isfaam wareer dhiskii muxuu uda booski waay walaac waa go'aan la'aanta waxa saxalkiya gaari waxaan leeyahay dhageyso wallaan war iga dambeyn wasiiru ma tiidu nafteeda warqad uga raba saxiixa haddaad la wacneed shalayto maanta wax kala u muuqda ma tihid sheegii wadaayay waxyaan ku socdo muhiim ah hortaa waxaan ahaa qof nool kulay mana wadatid moodka xiriirkii hadduu waswaasay waxaan leeyahay go'aanka